inaynu laba shay aan hoosta ka xareemo ta ugu horeysa waa mid ay horta National Development Plan muddo soo socday muddada uu soo socday marka sanad iyo badh weeyaan malaha inta hawsheeda lagu jiray afar shay baa galo waxa galay fikirkii baa galay waqtigii baa galay xoogii baa galay maalkiina uu galay marka horta runtii afar shay markay ka galaan wuxuu qiimo badan bay ku leeyahay dhamaanteena qiimo badan bay nala leedahay haday tahay dhinaca dawladda federaalka iyo haday tahay dhinaca kale maxaa la yiraahdaa dawladda goboleedyada oo idinka laftiinu qayb weyn baa ka haydeen oo ka qayb qaateen araadina ku jirta waqtigiina galay maxaa la yiraahdaa siyaabo inuu imaatinkiina halkan dhimaneyseen iyo markii la idinku yimaanayay xarumihiinaba intaba waxa weeye waa hawl laga qabtay maxaa la yiraahdaa National Development Plan dabcan way jiri karayaan in mararka qaarkood ay iman karto waxyaalo la isleeyahay malaasana ku wanaagsanay laakiin mabdaiyan waxa filayaa inayna isku diidaneen in marka ugu horeyso qorshaha la qabto marka xigtana sidan qaabkan ay u qoran tahay lafteeda wixii process-ka waynu kala saarnaa midna waa content-ka iyo waxa ka kooban tahay midna waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ama dhanbaalka xambaarsan tahay iyo maxaa la yiraahdaa mesela hadiiba ay dhacday inaan sidii la rabay aana u dhicin taasna waa mid kale oo aan ka wada hadli kareen laakiin waxaan ogsoonahay inaynu waqti badan gelinay juhdi badan ay naga galay saalaajligeed inaan hore uga sii socono ayaa ugu muhiimsan qodobka labaad waxa weeyaan waxaan rabnaa inagoo Soomaaliya oo isu wada dhan inaan wada ogol ka soo saari kareyno oo marka ay noqoto hawl yaraato marka la macaamilayno dadka ama maxaa la hay'adaha ama dawladaha ka qayb qaadan doona hadii alla idmo inay wax ka geystaan inay marka u hawl yaraanayso mar hadii wada ogol lagu yahay in ayaguna qaybtooda ka soo baxaan marka taasna waa mid kale oo doonayno mid saddexaad oo iyadana aan ka fikirayno waxa ahayd sidii loo sameyn lahaa ama joogteen looga dhigi lahaa insha Allah taala sanadka soo socda iyo waqtiyada kaleba ka dambeeyaba si marka loo sameyn lahaa joogteen loogu joogteeyo in wada tashigu soo socdo oo qaabka imika aan u bilownay haska dhutiyo laakiin insha Allah taala inaan marka ku wadno oo joogteyntaasna ay timaado dawladda cusub markay timaado lafteeda aan noqon wax halkan ku istaagay laakiin ay noqoto wax marka hore loogu sii socon karo mar walba wada tashi loo wada dhan yahay inay meeshii ay timaado oo ay ka qayb qaadataan idinkoo dawladaha iyo maxaa la yiraahdaa iyo dawladda federaalka intaba